hooyadan ayaa wiilkeeda waxay ku arkaysaa madaxiisa tiro ka muuqata yaabaysa indhaha iska qabanaysa wax isleedahay maxaa kugu dhacay laakiin markay isku dayday inay soo wado iskuulka waxay arkaysaa arday walba wadada mar madaxiisa ka muuqato tiro dhammaan tirooyinka muuqatana way kala duwan yihiin kadib ay waxay maleynaysaa kaliya in laga haayo indhaha kadib waxay arkaysaa xariifkaas bidaarta leh oo tiradiis aad u sareyso kadib ay wiilka weydiinaysaa qofkaas yuu yahay kadib ayuu uga jawaabayaa kani waa ardayga ugu natiijada sareeya iskuulka kadib ayuu ku dhahay waxbarashadiis aad ay u sareysaa balse xunistiisa ayaa zaid markaas kadib hooyadii ay waxay fahmaysaa dadka sida zaidka wax cunanaysa fiican wax bartaan tirooyinkaas ardayda madaxooda ka muuqata inay tahay natiijada ay markaas keenaan iskuulka kadib markay ay fiiriso wiilkeeda waxay arkaysaa natiijada madaxiisa ka muuqata in aad u liidato aad ay ugu walwalaysaa kadibna ay soo cararaysaa oo waxay aadaysaa iyadoo aamusan shaqadeeda kadib waxay go'aansanaysaa si uu wiilkeeda u helo natiijo fiican inay siiso cuntooyin fara badan sidoo kale si fiican wax uu u barto si automatically tirada madaxiisa ka muuqata way sii sarmaraysaa iyadoo u muuqata inuu maskaxdiisa si fiicnaan hooyadii ay midaas ku farxaysaa waxayna bilaabaysaa wiilkeeda inay si fiican raashin u siiso tirada sii kordhaysana waxay u qaadanaysaa inay tahay maskaxdiisa sidoo kale waxay bilaabaysaa sida shaydaanka oo kale inay wax barto wiilka habeen maalin waxay dhehaysaa wax baro waxayna u diidaysaa waqti uu ku nasto xariifka natiijooyinkiisa sare ayay u kacayaan arday walbana wuxuu leeyahay abuu sidan ku noqotay midaasina wuxuu ka helaya dhiirigelin sidoo kale hooyadiisna dhiirigelinaysa mar walba garbiisa ay taagan tahay isagana si adag ayuu wax baranaya ilaa natiijadiisa dhaafayso 555 ilaa 556 hooyada ay waxay dhehaysaa natiijada wiil sare uma aysan kicin balse wiilku wuxuu jecel yahay inuu noqdo fanaan hooyadii ay arkaysaa wiilkeeda garaacaya gidaar natiijooyinkiisa hoos ay aadeen kadib gidaarka ay qabanaysaa inay ka jibinaysaa markay jibis gidaarka natiijooyinka sare u kacaya markaas kadib wiilku uu isbedelaya asiga dhan wuxuu noqonayaa doqon wax waliba uu jeclaan oo burburna xitaa tima ayuu iska xiiraya waxbarashadiina sidoo kale uu isku dayay kadib hooyadiisa ku dhahay sidaan ma ku qanacsan tahay hooyada ay wiilka soo wadaysaa waxayna keenaysaa maqaaxida si ay u qanacso kadib ayuu u sheegayaa cuntooyinkan imaashaanba inuusan ka helin markale si ay u qanacso waxay keenaysaa gidaar asigana uu qabanay gidaarkii waa uu jibinayaa hooyadii ayaa naxaysa dhacdadan wiilkan uu sameynayo mar kale wiilka ayaa ku dhahay aniga mar ayaad qalbiga iga dishay wuxuuna ku dhahay aniga iga fogo ugu dambeyn hooyadii aaminsaneed wiilkeeda inuu keeno natiijo fiican fikirkeeda xumaa kala dhicinaysa asigana sidoo kale hooyadiisa kale ayuu noqonaya balse maalmaha kamid ah ayuu wuxuu maqlayaa codka ayuu soo tixraacaya wuuna soo baxay kadib hooyadiisi dad kale ayuu arkay u taagay meel masrax oo isagu sacbinaya isaga wiilkii waa uu qiiroonayaaba balse xariifka weli waxa uu kolbalaya dhacdooyinka hooyadiisa ay ku soo sameeyay kadibna ayada ay ku dhiirigelinaysa halkaas inuu istaago oo wax uu sameeyo waxayna ku leedahay haddii aad halkaas istaagto waxa ku kordhaysa 20 dhibcood ugu dambeyn xariifkii waxa uu bilaabayaa inuu soo qabso mikrofoonka kadibna uu heeso dhammaan dadkii meesha jooga ayaa bilaabaya ninka inay u sacbiyaan sidoo kale ay taageeraan dulucda muuqaalka ayaa waxay tahay ardayga inuu natiijo fiican wax ma soo kordhinayso laakiin waxa soo kordhinaya waxay tahay waxa isagu uu jecel yahay inuu helo